simadu waxay gudoomiyeen koow in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8 bisha Janaayo 2024 labo in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hanaankii ay odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen maadaama xilliga ka harsan muddaxileedka dawladdan aan laga gaari karin howlaha badan ee ay doorasho kale u baahan tahay shirweynaha ismada Puntland ee Soomaaliya garowe kowda bisha 11 2023 tixraac lambar eber hal xariijin 2023 bismillaahir rahmaanir rahiim ku madaxweynaha dawladda Puntland ee Soomaaliya ku gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland ku gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland ku axsaabta siyaasadda Puntland ku dalladda mucaaradka Puntland ogeysiin wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ogeysiin guddiga doorashooyinka Puntland PEC ogeysiin wakiilada beesha caalamka waxaa shir uga furmay ismada Puntland magaalada Garowe taariikhdu markii ay ahayd 12 bisha 10 2023 wuxuuna soo gabagaboobay maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bisha 11 2023 waxaa shirkaas looga arrinsanayay sidii xal waara looga gaari lahaa ismaandhaafka siyaasadeed ee doorashooyinka una dhaxeeya siyaasiyiinta Puntland ismadu waxay la kulmeen madaxweynaha dawladda Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo guddiga doorashooyinka Puntland ee PEC waxaa kale oo lala kulmay midowga mucaaradka Puntland ururada mucaaradka ee saddexda ah ee ku midoobay dalladda SIM iyo ururka muxaafidka ah ee KA markii ay ismadu arkeen kala fogaanshaha aragtiyaha dhinacyada ayna arkeen inay adag tahay isu soo jiididda dhinacyada waxay ismadu isla garteen inay la kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland sida guddi ka socda baarlamaanka dawladda Puntland dalladda bulshada rayidka ee Punsa qaybo ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada culamaa u diinka aqoon-yahanka dhalinyarada ganacsatada ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP haweenka iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah si loo weydiiyo waxay hayaan xog xalna u arkaan ugu horeyn ismadu waxay bogaadinayaan ugana mahadnaqayaan dawladda dadaaladeedii iyo waxqabadkeedii gaar ahaan horumarkii ay ka gaadhay doorashooyinkii dawladaha hoose ee lagu soo doortay xildhibaanada golayaasha deegaanka 33 degmo oo Puntland ah taasoo u gogol xaadhay in Puntland ay haweysato 25 sano kadib qabashada doorasho qof iyo cod ah inta kadib ismada oo ka ambaqaadaya marxaladda xasaasiga ah ee ay haatan Puntland marayso markay dhageysteen tixgeliyeen aragtiyaha qaybaha kala duwan ee kor ku xusan iyo kuwa aan la xusinba markay arkeen kala fogaanta aragti ee mucaaradka iyo muxaafidka Puntland markay arkeen waqtiga ka dhiman muddaxileedka hay'adaha dawladda ee gabagabada ah markay arkeen dagaalkii ka dhacay Garowe ee aan ilaa iyo haatan xal laga gaarin markay arkeen xiisadda colaadeed ee ka oloosan deegaanada Puntland waxay gudoomiyeen sidan soo socota in amniga xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka reer Puntland uu ka horeeyo kana mudan yahay aragtiyaha siyaasadeed ee isdiidan ee ay kala qabaan darafyada iska soo horjeeda si loo qabto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah kuna dhacda waqtiga ka harsan muddaxileedka maamul ee inoo dhisan waqti ahaan farsamo ahaan iyo diyaarsanaan ahaanba ismadu waxay gudoomiyeen koow in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8 bisha Janaayo 2024 labo in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hanaankii ay odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen maadaama xilliga ka harsan muddaxileedka dawladdan aan laga gaari karin howlaha badan ee ay doorasho kale u baahan tahay saddex in xubnaha baarlamaanka cusub ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taariikhdu marka ay tahay 8 bisha Janaayo 2024 afar in dawladda la dooran doono ay qabato doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinkii dhimanaa ee aysan ka qabsoomin doorashadii qof iyo codka ee dawladaha hoose laguna qabto muddo 6 bilood gudahood ah oo ku eg 8 Juun 2024 shan in dawladda cusub ay dhamaystirto hanaanka doorashooyinka qof iyo cod iyo habraacyadii
iyo hawshii ay doorasho u baahnayd muddo ku siman 24 bilood gudahood doorashadooda kadib 6 murashaxiinta qabashada xilalka xubinnimada golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa inay ku dhaartaan lagana saxiixaa meelmarinta iyo dhammaystirka barnaamijka doorashada qof iyo cod muddo 24 bilood gudahood ah taasoo haddii ay ku guuldaraystaan aysan xaq u yeelan doonin ka qaybgalka doorashada xigta iyo inay isu soo sharaxaan xil siyaasadeed 7 maadaama muddaxileedka hay-adaha dowladdani uu gebagaba yahay waxay isimadu guddoomiyeen in dowladdu ay soo saarto lifaaqii doorashada sida ugu dhaqso badan magacoodana guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xallinta khilaafaadka 8 waxaa kaloo ay isimadu guddoomiyeen in dhammaan ciidamada qalabka sida ee Puntland aysan ku milmin siyaasadda kana qayb qaadan khilaafaadka iyo ismaandhaafka darafyada ishaya maadaama loo idmaday sugidda ammaanka Puntland qalabka ay hayaan uu yahay hanti qaran oo ay tahay in loogu adeego amniga Puntland iyo dadkeeda oo dhan 9 waxay isimadu guddoomiyeen in guddi xaqiiqo raadin ah loo saaro qiimaynta khasaarihii naf iyo maal ee ay geysteen dagaaladii ka dhacay Boosaaso iyo Garowe magdhowna laga siiyo dhibanayaashii ku waxyeeloobay 10 isimadu waxay ka garaabeen cabashada beelaha ka qatan matalaadda golaha shacabka ama saluugsan qoondada kaga soo hagaagtay sida tabashada beesha tanada daarood lana soo saaro lifaaq ku aadan xuquuqda dadkaas oo ay isimadu hore u soo jeediyeen 11 waxaan ummadda Puntland ugu baaqaynaa in xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani si hufan loola shaqeeyo inta ka harsan muddaxileedkooda Allah mahadle magacyada isimada saxiixay warqadan Suldaan Saciid Maxamed Garaase oo ka mid ah aasaasiyaashii Puntland ugaas Cumar Geelle Maxamed oo ka mid ah aasaasiyaashii Puntland Beeldaajo Cali Faarax Maxamuud oo ka mid ah aasaasiyaashii Puntland Suldaan Cabdulqaadir Cumar Shabeel oo ka mid ah aasaasiyaashii Puntland Suldaan Saciid Guuleed Sanyare Suldaan Maxamed Jaamac Shire Suldaan Cabdiqani Suldaan Xasan Cali Beeldaajo Cali Beeldaajo Salaad Imaam Cabdiwahaab Maxamuud Guray ugaas Cabdiqaadir Cilmi Xirsi ugaas Maxamuud ugaas Maxamed ugaas Maxamuud ugaas Axmed ugaas Maxamed Suldaan Maxamed Suldaan Maxamuud Cilmi Suldaan Cabuud Cabdi Ismaaciil Suldaan Cabdiraxmaan Aadan Dude Suldaan Ciise Maxamed Ciise Suldaan Abshir Axmed Jibriil Suldaan Cabdibile Warsame Muuse Suldaan Cabdiqani Qorane Maxamed Suldaan Axmed Cali Yuusuf Suldaan Zubayr Xaaji Maxamuud Qud Cali Maxamed Cali Sayid Cabdi Xaashi Cali Salaad Cabdi ugaas Cabdi Jaliil Cali Faarax Suldaan Khalid Abshir Saalax Suldaan Xasan Urur Dabey Fiqi Cabdi Naasir Maxamuud Mire ugaas Maxamuud Sheekh Cabdulqaadir iyo boqorka daarood boqor Burhaan boqor Muuse aad baad u mahadsantihiin adeega mareeg Swipe account ee bangiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilliga aad u dooratay